عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta telefishinka BBC London wararka ugu waaweyn caawa waxa kamid ah madhamaadkii khilaafada Mosul baa lagu jabiyay imikana kooxda IS raqa ayaa laga saaraya waxaan idin haynaa warbixin gaar ah oo ka hadlaysa dagaalada lagula jiro kooxda IS qoysaska muhaajiriinta ah ee iyagii caruurtooduba ku nool yihiin kaymaha Dunkirk waxay ciil u qabaan inay marun Britain cagaha soo dhigaan su'aashu waxay tahay hurdo kugu filan ma heshaa mise soo jeed baa ku dilay waxaanu la hadlaynaa saynisyahanada raba inay ogaadaan marka hurdadu ka yaraato waxa ku dhaca maskaxdaada dagaalka dib loogu qabsanayo magaalada Raqqa ee Suuriya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo dawladda Ciraaqna ay sheegtay inay ururka la baxay dawladda Islaamiga ah kaga guuleysatay dagaalkii Mosul xoogaga ay hogaaminayaan Kurdiyiinta ayaa xoog ku galay qaybo kamid ah magaalada qadiimiga ah ee Raqqa iyagoo taageero ka helaya kuwa Mareykanka wariyaal ka tirsan BBC-da ayaa la socda dagaalyahanada Kurdiyiinta ee dagaalka hogaaminaya Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya gudaha Raqqa ururka la baxay dawladda Islaamka waxa uu sameeynaya isdifaaci ugu dambeeyay duulaan ayaa ku wajahan wadnaha khilaafadooda isbahaysi isku dhaf ah oo ka kooban Carab iyo Kurdiyiin rag iyo dumarba ayaa isla socdo Sangwin waa taliyaha kumanaan ciidan oo ku sugan jiidda hore ee Raqqa waxa ay wada socdaan ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya SDF isbahaysi ay Carab ka mid yihiin laakiin Kurdiyiinta ay hogaaminayaan guusha ay IS ka gaaraan waxa ka garabsiinaya ciidamada Mareykanka ayaa halkan si aayara ugu soo badanaya hub iyo tababar ayayna siiyaan Taliya Sang iyo ciidankeeda waxa ay ku sugan yihiin dhanka galbeed waa ciriiri gudaha gaarigan aysan hubka karin oo halkan lagu sameeyay bartamaha Raqqa ayuuna ku sii socdaa kooxda la baxday dawladda Islaamka waxa lagu sii riixayaa dhanka magaalada qadiimiga ah laakiin waxa ay qoteen godad waxayna ka soo bixi karaan meel aan laga filayn ayaga oo wadadan ku sii socda haddana guri ayay u baarayaan waxayna maqli karaan hadallada dagaalyahanada IS ee jidadka ku dhuumanaya waxay wajahayaan kooxdan oo lagu tilmaamo kuwa ugu halista badan dunida dhaawac iyo dhimasho iyo dhibaato kadib waxa u muuqato guul ay ka gaaraan ururka la baxay dawladda Islaamka faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga shaqaalaha gargaarka Faransiiska ayaa sheegaya inay ka walacsan yihiin boqolaal muhaajiriin ah oo xiriir ka samaystay meel u dhow Dunkirk si ay u soo galaan Britain qoysaska waxa ku jira caruur aad u yar waxayna ku nool yihiin guryo cooshado ay ka samaysteen madaxweyne Macron-ka Faransiiska ayaa ku adkaysanaya inaan xiriir rasmi ah laga fureynin gobolkaasi Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa Scarlett waxa ay Faransiiska ku nooshahay 6 toddobaad oo ay dhalan tahay muddadaasna guri kuma aysan noolayn mana aysan ku seexan sariirta caruurta meesha kaliya ee loogu qabeeyo waa webi u dhow waalidkeed iyo 2 gabdhood oo la dhashay ayaa yimi 4 bilood ka hor Keynton Dunkirk waxa ay ka yimaadeen Ciraaq waxaad moodaa inayna leeyihiin inaad qoys dhaqan noqotaan xaq uma lihidin duruuftu aad bay igu adag tahay ilmahaygan yar markaan arkana qalbigaan ka damqadaa inkastoo aysan haysan wax qabaysa musqulo ama biyo ayaa waxa la tuhunsan yahay in ku dhawaad 50 caruur ah ay ku nool yihiin halkan iyaga iyo qoysaskooda iyo boqolaal dhalinyaro aan guursan maalmo ka hor booliska ayaa halkan yimi waxayna burburiyeen xeryahan cooshadaha ah teendooyin iyo hoygii ay deganaayeen mutadawiciin ayaa sheegaya in hooyo halkan ku soo laabatay oo doonaysa in ay qaadato haraadigii alaabteedii ay la kulantay ayaga oo wada qoyan
booliska waxay soo galeen ayagoon horey usii sheegin imaanshiyahooda waxay xoog ku soo galeen teendhooyinka ayagoo dadka laad la dhacay dibadda oo uu roob ka socdana u saaray dad badan ayaa harada dhinaceeda u soo cararay ayagoo qaarkood gacmaha ku wata carruur yaryar in ka badan 300 oo qof ayaa halkan ku nool dad cusubna maalin kasta ayay yimaadaan duqa deegaankan ayaa xaaladda dadkan ku tilmaamay mid bani'aadanimada ka baxsan waxa uuna sheegayaa in halkan ay u baahan tahay in laga dhiso xero qaxooti oo rasmi ah balse sanad wax ka yar kadib markii la xiray kaale ayaa dowladda Faransiiska waxa ay diidan tahay xeryahan Faransiiska ayaa la daalaadhacaya 10 sano muhaajiriin ku soo qulqulaya halkan Oktoobartii la soo dhaafay waxa ay ka saareen kumanaan qof xero ku taalay kaymaha kaale booliskana waxa ay sheegayaan in raridda xeradan Dunkirk ay ahayd mid looga hortagayo inay dadka qaxootiga ah degaan Sharwan waxay qoyskiisa soo mareen 6 dal balse waxa uu doonayaa in caruurtiisa ay ku barbaaraan UK sababtoo ah waxa uu ku hadlaa Ingiriiska dawladana waa uu jecel yahay waxa uu rumaysan yahay in dalka laga siin doono guri ciidamada midowga Afrika ee ka howlgalaya Soomaaliya ayaa maanta baneeyay dhismihii jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Gahayr waxay si rasmi ah ugu wareejiyeen dawladda Soomaaliya kadib xaflad lagu qabtay gudaha dhismaha jaamacadda ayaa saldhig u ahayd militariga AMISOM 10 sano ee la soo dhaafay Gahayr waxa ka muuqda burbur lixaad leh maamulka lagu wareejiyay ayaa ballan qaaday inay dib u dhisi doonaan lana bilaabi doono in wax lagu barto jaamacadda ayaa ku burburtay dagaaladii sokeeye ee wadanka ka dhacay iyadoo lahayd ilaa 7 xarumood oo tan maanta lala wareegay ay ugu weyneyd bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta madaxweynaha Mareykanka wiilkiisa ayaa baahiyay silsilado email ah oo muujinaya in Ruushku uu ku helay akhbaar xasaasi ah oo ku saabsan Hillary Clinton Rob Goldstone ayaa u sheegay wiilka Donald Trump inay jiraan warar qayb ka ah taageerada Ruushka ee Trump mid ka mid ah hobalada ugu caansan Uganda ayaa loo dhaariyay inuu noqdo xildhibaan baarlamaanka ah Bobby Wine waxa uu ku guuleystay kursiga isagoo ah mudane madax bannaan bishii June dhamaadkeedii doorasho boos banayn ah waxa uu qaaday heeso laga daba dhacay intii doorashadu ololadeeda uu ku jiray isagoo u doodayay dadka saboolka ah isla markaana ka hadlay arrimaha xorriyatul qowlka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Qatar ay qaadatay mowqif macquul ah markaad eegto mushkiladda khaliijka ee iyaga iyo jaarkooda Qatar ayuu booqanayaa Mr Tillerson iyadoo dalkaasi ay go'doon dhaqaale ku soo rogeen dalalka Sacuudiga Imaaraadka Bahrain iyo Masar iyagoo Qatar ku eedeeyay in argagixisada caawiso Qatar ayaa dafirtay eedeymahaasi Hindiya waxaa laga wadaa olole cashuurta cusub ee maciishada ah oo dhawaan dhaqal gashay cashuurtan mid ka mid ah ayaa waxay saaran tahay suufka nadaafada caadada dumarka dadka qaar ayaa ka soo horjeeda hadaba Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa miya in la canshuuro suufka xaydka haweenka waxay tahay arrin dal kasta aad looga hadalhayo iyo doodad ku saabsan canshuurta suufka ayaa hadda haraysa dalka Hindiya kooxda ololahaasi wado ayaa ku tilmaamay canshuurta dhiiga waxay dhaheen canshuurta cusub ee maciishada oo hadda dhaqan gashay ay fursad u noqotay in la joojiyo canshuurta saaran alaabta nadaafada ee dumarka Only 12% of women boqolkiiba 12 haween ah ayaa isticmaala suufka xaydka inta kale waxay isticmaalaan dhar ciid caleen qalalan ama caagado sand husk dried leaves plastic now in a seemingly balse dawladdu waxay canshuurta ka qaaday alaabtan dhaqanka ah oo haweenka madaxa marsadaan waxay sheegeen inay muhiim haweenka u tahay laakiin dad badan ayaa dhaheen haddii alaabtan canshuurta laga saaray waxa waaye inuu canshuurta suufka xaydka laga joojiyo haddii aynu ka yareyno cashuurta suufkan xaydka ee ay dumarku isku nadiifiyaan waxaa dhacaysa in sharikadihii waaweynaa ee sameynayna aanay cashuurtii laga dhimin aanay dadkii iyaguna qiimihii ka dhimin ee ay weli sameeyaan faa'iido aad u ballaadhan sharikadahan ayaa faa'iidadoodu ay tahay mid aad u heer sarreysa markay iibinayaan suufkan ee dhiigga ee dumarku ay isticmaalaan helitaanka suufka nadaafada ee haweenka ayay adag tahay in la helo sidoo kalena waa qaali taasoo sababtay in 10,000 oo gabdho ay sanad walba ka cararaan waxbarashada markii caadada ay ku dhacdo balse shirkadaha soo saara suufka aala canshuuraa 12% waana go'aan oo dawladda difaacaysa
iminkana wararka ciyaaraha ugu waaweyn haddaynu eegno Romelu Lukaku ayaa soo afjaray tababarkiisii ugu horeeyay ee Manchester United uu la galo iyaga oo maraya dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay in Paul Pogba uu ku qanciyay inuu ka tago Everton. Arsene Wenger ayaa sheegay inaan Sanchez u sheegin inuu rabo inuu ka tago Arsenal. Waxaana uu sheegay inay tahay in Sanchez heshiis cusub saxeexo. Waxaanu yidhi cidina ma oga maanta in Sanchez uu ku ekaan doono sanadkiisa ugu dambeeya heshiiska shaqada xilli ciyaareedka soo socda, waayo waa uu kordhin karaa heshiiska shaqada ee nagala dhexeeya. xagga tenistana Johanna Konta ayaa rabta inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee British ah ee soo gaadha semifinalka Wimbledon muddo 40 sano ah. Iminka waxay la ciyaaraysaa Simone Halep oo kaalinta labaad kaga jirta liiska haweenka tenista caalamka. maanta roobka ayaa ka jiiday ciyaaro tennis ah oo lagu qaban lahaa garoonada dibadda ee Wimbledon, laakiin Novak Djokovic ayaa ku jiiday Adriana Mariano oo Faransiisa 3-0. Djokovic ayaa bari la ciyaari doona Thomas Berdych. ma heshaa hurdo kugu filan? su-aasha la isweydiinaya waa taa mise soo jeed baa ku dilay? saynis yahanada Canada jooga ayaa bilaabaya waxa la filaya inay noqdaan cilmi baadhistii ugu weyneed dunida ee la xidhiidha saameynta maskaxda ay ku leedahay hurdo la'aantu. 100,000 oo ruux oo dunida ku nool ayay doonayaan inay internetka kaga qayb galaan tijaabadan si loo arko intay leeg tahay hurdada aynu helno iyo saameynta ay ku leedahay awooddeena shaqo. Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. ku dhawaad 3 meelood nolosheenna waan hurudnaa, taasina waxay muhiim u tahay caafimaadka jirkeenna iyo maskaxdeennaba, balse waxaan helnaa hurdo ka yartii hore. Adrian Owen oo ah saynisyahan British ah deganna Ontario ayaa aaminsan in tani ay ku leedahay saameyn halis ah awoodda maskaxdeenna. maalin walba 100 go'aan ayaynu gaadhnaa, 100 waxna waynu xusuusannaa. waxaan u jeedaa go'aanno adag ayaynu qaadannaa, sida guri baan iibsadaa, laakiin waxa kaloo aynu xusuusannaa waxyaabo aan cuslayn sida gaadhigii xaggaan dhigaa ama markaan shaqada ka tegayay aan guriga ku socdo maxaan sii iibsadaa. 4 saacadood ayaad hurdaysaan, kadibna waan idin toosinaya. waxaan ku biiray mutadawiciin jooga jaamacadda Western ee Ontario, kuwaasi oo isku dayaya tijaabadooda internetka si ay u qiimeeyaan sababaynta, xusuusta iyo go'aan qaadashada. waxaa la sharaxayaa saamaynta daalka uu leeyahay. haddii aad soo jeedo ilaa 4 habeenimo oo aad hurdo oo keliya 4 saacadood. isla markiiba waxaa lagu celinayaa tijaabadii maskaxdeennii ee habeenkii ka horreeyey la sameeyey. dhibcihii oo dhan hoos ayay u dhaceen marka la barbar dhigo habeenkii ka horreeyey. Sylvie oo gabdhaheeda toosiyaan dhowr jeer habeenkii, dhibcaheeda waa ay kordheen. waxaa laga yaabaa in aan la qabsaday ku shaqaynta hurdo aad u yar. waa in aan kacaa marka ay carruurtaydu toosaan. anigu iima wanaagsana. tijaabo ayaan sidoo kale sameeyey markii maskaxdayda la baarayay. kadib hurdo caadi ah, maskaxdayda si wanaagsan ayay u shaqaynaysay. dhibcaha jaallaha waa meelaha ay hawshu ka korortay. tani waa baaris la sameeyey 4 saacadood oo hurdo ah kadib. wax badan ma jiraan. waa caddaan meelaha dhaqdhaqaaq badani inaanay ka jirin dhinaca maskaxda oo aynu ognahay inay muhiim u yihiin go'aan qaadashada, xallidda mashaakilka iyo xusuusta. dhaqankeenna 24 saac saamayn halis ayuu ku yeelan karaa bulshadeenna. cilmi baaristan waxay daboolka ka qaadaysaa inta ay la eg tahay hurdada ay maskaxdeenna u baahan tahay si ay u noqoto midda ugu wanaagsan. ugu dambeyntiina waxaan idin haynaa sawirro nibiri oo cajiiba oo drone lagu qaaday iyagoo la ciyaaraya hoombarada xeebaha galbeed ee Australia. waqtigan oo kale xilliga nibiriga Hamburg uu soo hayaamo, noocyada kala duwan ee nibiriga ayaa ka yimaada xeebaha cuntada ku badan tahay oo yimaada xeebaha Kimberley ee diiran si ay ugu dhalaan. intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa. waa ku mahadsantiin daawashadiinna. intaaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.